السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلام يا صاحب halkan iga daawanaya meel walba joogtaan iyo muuqaalkaygu marka idin soo gaarayba muuqaalkan waxaan rabaa inaan bal oga hadlo colaad mar kale ka dhex qarxaday Mareykanka iyo Iran oo saacadii hadda la soo dhaafay runtii aad u soo xoogeysanayay duqeymo culus ay dawladda Iran ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada muhiimka ah oo Mareykanku ay ku leeyihiin bariga dhexe qaasatan Bahrain iyo waliba Kuwait waxaan la arkayaa burbur xoog leh oo dawladda Iran ay u geysatay labadaas dal iyo waliba saldhigyada ay Mareykanku marka ay ku leeyihiin marka waxaanu bal fiirin doonaa colaadan maxaa keenay halkay ka bilaabatay fashil ma u keeni kartaa wada hadallada la filayay maanta iyo bari wixii ka dambeeya in dalka Swiss-ka ay markaasi ay ka bilowdaan iyo marinkii Hormuz oo noqday ubuucda colaada ama dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump oo dhexda ka taagan colaadu asagoo bilaabay laakiin uu istaajin la yahay ama lugaha uu kala bixin la yahay bal arrimahaas oo dhan ayaynu fiirin doonaa iyo wararkii hadda ugu dambeeyay ee bariga dhexe soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtaan iyo soo muuqaalkaygu marka idin soo gaarayba taariikhdu waa 28 June 2026 war markii ugu horeysay oo aynu maanta hawada ku kulmayno fadlan haddii muuqaalkii soo gaaro muuqaalka like saara channelka isku xira si aad la socotaan wararka ugu dambeeya oo halkan ku soo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walba waxaa dib u soo laabatay duqeymihii iyo colaadii u dhaxaysay Mareykanka iyo waliba Jamhuuriyadda Iran xaaladuna waxay u muuqataa inuu meesha ka baxay heshiiskii Mareykanka iyo Iran ay kala saxiixdeen isla markaasna ay garwadeenka ka ahaayeen dawladaha sida Qatar, Pakistan iyo waliba dawlado kale Jamhuuriyadda Iran ayaa saacadii hadda la soo dhaafay weerar ba'an ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ay Mareykanku ku leeyihiin bariga dhexe qaasatan Bahrain iyo waliba Kuwait kadib markii Mareykanku uu weeraray saldhigyo Iran ay ku leedahay aagaga marinka Hormuz haddaba arrintan waxay ka soo bilaabatay maxaa sababay Mareykanku inuu weeraro saldhigyada Iran iyo inay Iran sidaan ay uga falceliso halkee arrintan ay ka timaaday maadaama labadii maalmood hadda la soo dhaafay aanan aad uga warraminin colaadda bariga dhexe oo aynu aad mashquul ugu ahayn waxyaalaha ka socda gudaha dalka Soomaaliya colaadan hadda cusub waxay ka bilaabatay in maalintii Khamiista ahayd ay Iran weerartay markab marayay marinka Hormuz oo ciidamada ilaalada kacaanku ay sheegeen inay markaasi ay u dhagnuglaan waayeen ama ay maqli waayeen awaamirta ciidamada badda ee dawladda Iran marka Iran waxay wali doonaysaa in markab walba oo maraya marinka Hormuz waa iyaga fasax weydiisto ayagu meesha ay soo mariyaan amarkoodan lagu kala socdo waliba kaliya xataa ma ahan marinka Hormuz gacanka Bershiya oo dhan Jamhuuriyadda Iran waxay doonaysaa in ayagu ay maamulaan tanaasula kaba ay ogola heshiiskii la galayna wuxuu u muuqdaa mid aan dhaqan gelinin waliba qodobkan waa mid ka mid ah qodobada heshiiskan sida weyn looga heshiiyay laakiin Iran wali dhaqan gelinta arintaasu maaha mid ay aqbalayso intii hadda heshiiskan uu jirayna waxaynu arkaynay sheegashooyin badan oo dhanka Mareykanka ka imaanaya oo heshiiska ku jirinin kuwaasoo Iran ka xanaajiyay waxaana la oran karayaa inay Iran diido qodobadii ku saabsanaa marinka inay xataa diido inay maqli weydo waxay ka imaanaysaa sheegashooyinka tirada badan ee Mareykanku uu sheeganayo waxyaalahaas ayaana shucaac tiro badan ku furay heshiiskii la galay si walba ha ahaato markabkaas ay Iran weerartay qasaare xoog leh ayay u geysteen wixii inta ka dambeeyay marka dawladda Mareykanka ayaa ka falcelisay weerarka Iran ay weerartay markabkaasi waxay Mareykanku marka ay weerareen laba ka mid ah saldhigyada muhiimka u ah ciidamada badda ee dalka Iran isla markaasna ku teedsan marinka Hormuz iyo gacanka Bershiya waa labadii maxaa la yiraahdaa saldhig oo Mareykanku uu weerarayay muddooyinkii hadda la soo dhaafay oo dhan mid waa midka Siri ku yaala midna waa midka jasiiradda Qashim ku yaala labadaas ayay duqeymo xoog leh Mareykanku ay shalay u geysteen kadibna taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa waxay shaaciyeen noocii loo duqeeyay iyo maxaa la yiraahdaa weerarka ay halka ay ka geysteen wixii inta ka dambeeyay marka xaaladii gacantii ka baxday Iran waxay bilowday inay ku hanjabto inay ka falcelin doonto
ama ay jawaab culus ka bixin doonto weerarada ay dowladda Mareykanka ku soo qaadeen labada saldhig ee Iiraan ay ku leedahay ee marinka Hormuz. Marka saakay ay Iiraan bixisay jawaabtii ay shalay sheegtay inay bixin doonto, waxayna saaka Iiraan ku kalahday ilaa 8 xarumood oo dowladda Mareykanku ay ku leedahay bariga dhexe oo markaasi ay ugu waaweyn yihiin saldhigyada Mareykanku ay ku leeyihiin Kuwait iyo waliba dalka Bahrain. Marka weerar ba'an ayay ku qaaday ayaa la leeyahay, gantaalo iyo waliba weeraro nooca droneska ah ayay Iiraan ku qaaday ilaa 8 xarumood oo kala duwan oo Mareykanku uu gobolka uu ku leeyahay. Waxaa soo baxaya sawirro iyo muuqaallo cusub oo muujinaya in weeraradii Iiraan ay qaaday xataa meelo dad shacab ay degan yihiin oo gudaha dalka Bahrain ah baabac xoog leh loo geystay, guryo badan la burburiyay, khasaarayaal kala duwan oo markaasi uu ka dhashay. Inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee gaaray saldhigyada Mareykanku ay ku leeyihiin dalalkaas oo Iiraan ay weerartay, laakiin haddana kuwa shacabka iyo kuwa meelaha residentialka ah ayaa hadda si weyn u soo baxaya oo warbaahinta sida Al Jazeera oo kale ay banaanka hadda u soo qufayaan. mar walba oo Iiraan ay weerarto Bahrain iyo Kuwait khasaare xoog leh ay u geysataa, mar walba burbur xoog leh ayay u geystaa saldhigyadaasi. Weerarada hadda ugu dambeeyay oo dhanna waxay ahaayeen kuwa khasaare badan geystay, inkastoo Mareykanku marka hore ay qariyaan, laakiin haddana dib ay mar walba ay ka soo baxayaan. Kuwaanu maxay noqon doonaan markaasi lama yaqaano. Waxaa marka muuqata in heshiisku sheegii ay garwadeenka ka ahayd Pakistan uusan hadda shaqaynaynin, Mareykanka iyo Iiraanna aysan sinaba heshiis dhab ah aysan u galaynin. Labada dhinacna waxay u muuqdaan kuwo aan markaasi is aaminaynin, lamana yaqaano dowladda is aaminaynin sida ay markaa heshiis rasmi ah ay u gaari karayaan. Weeraradan ama dhacdooyinkan hadda soo cusboonaaday dhowrkii maalmood oo hadda ugu dambeeyay ayaa waxaa loo arkaa kuwa fashilin doona wada hadaladii loo madlanaa ee Mareykanka iyo Iiraan markaasi ee dhexmarayay. Iiraan shalay sheegtay in talaabooyinka Mareykanku uu qaaday ay saameyn xoog leh ay ku yeelan doonaan wada hadalka oo markaasi ay laga yaabo inay diidaan ama aysan tagnin wada hadalka maanta loo madlanaa inuu ka furmo dalka Swiss 29ka iyo 28ka ayaa loo madlanaa in la isugu tago magaalada Geneva ee dalka Swiss si marka loo sii qaado wada hadaladii la sheegay in guulo markaasi laga gaaray. Haddii marka hadda colaadii dib loogu laabtay, marinkii Hormuz la isku weerarayo, saldhigyadii Mareykanka ee bariga dhexe la weerarayo, lama yaqaan sida markaasi loo wada hadli doono. Markaysan dhanka kale Israa'iilna waxay bilowday inay markaasi ay ka baxdo heshiiskii iyo inay weeraro ka geysato gudaha dalka Lubnaan. Waana qodob kale oo asaguna muujinaya in heshiisku uusan shaqaynaynin, waana waxyaalaha heshiiskan uu shaqeeyo hortaagan ayaa waxaa ka mid ah colaadda dalka Lubnaan iyo weliba u dhaxaysa dhankaasi Israa'iil. Marka heshiiskii la gaaray iyo wada hadaladii halkaas ay marayaan, waxayna qarka u saaran yihiin ayaa la leeyahay in markaasi lagu kala tago. Madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Trump oo hadaladiisu ay aad isaga hor imaanayaan, ku fadeexaysan dadka shacabka ee reer Mareykan iyo weliba siyaasadda caalamka, mar guul sheeganaya, mar nabadoon iska dhigaya, marba wada hor la qaadanaya, ayaa wuxuu dhexda ka taagan yahay colaad asagu uu bilaabay laakiin dhamaadkeedu uusan masuul uusan ka ahayn. Colaad lugaha loo geliyay ayuu markaasi lugaha uu kala bixilay. Shacabka reer Mareykanna subax alla keen wuxuu isku dayaa inuu seexiyo iyo inuu yiraahdo colaadii waa la soo afjaraya, laakiin awood uma leh Mareykanka xilligan inuu colaadda asagu markaa uu istaajiyo. Waxay hore Iiraan u sheegtay in Mareykanku colaaddu ay bilaabeen, laakiin inay istaagta cidda masuulka ka aysan ayaga ahayn oo markaa ay tahay jamhuuriyadda Iiraan. Lama yaqaan sida xaaladdu ay noqon doonto. Iiraan hanjabaado hor la ay soo diraysaa waxay leedahay haddii dhagax dambe lagu soo tuuro ama haddii weerar dambe Mareykanku uu ku soo qaado gudaha dalka Iiraan, waxay Mareykanku la kulmi doonaan weerar roob ba'an ay la kulmi doonaan ay leeyihiin. Markaysan marka waa la isku sii hanjabaya, waana arrin xiri karta saaxadda wada hadalka ee Mareykanka iyo Iiraan. Bal intaasaan ku soo koobaya waxyaalihi dambe arrimahan ka soo kordha ayaan bal muuqaaladeena dambe ku fiirin doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.